dalka Ingiriiska gaar ahaan magaalada Bristol oo injineer Yariso hadda wuxuu noqday gobolka injineer gudoomiyaha gobolka Banaadir waxaan rabaa inaan halkan ka cadeeyo waqtigaas waan awoodi waayay caashiq ah u qaaday anigoo yar ayaan dabcan aan jeclaaday injineer Yariso dabcan waqtiga iyo waa xagga alle kama soo dhamaan inaa u sheegto balse haddaan awooda inaa fariinteeda aan gudbiyo si u gudbiyo anigu waxaan ahay gabar caashiq baan u qabto injineer Yariso jaceelka aan u qabay waqtigaas waan awoodi waayay inaa u sheegto injineer waqtiga iskuul macallin buu ii ahaa aniga waan awoodi waayay marka balse hadda ayaa waxaa hadal xataa ma garan inaa u sheegto waayo jaceelkiisa saa'id ii haayo marka waan awood la xataa inaa hadal aan hadlo marka hadda waxaan rabaa inaan halkan ka cadeeyo jaceelka saa'idkaana u qabo injineer Yariso anigu waa ku jeclahay saa'ida wili ku jecla nafsadeeda xataa waa ku hori karaa Yariso waa awood waa marka wallahi billahi waa awood waa waqtiga isla joogna Bristol balse hadda waxaan codsanayaa injineer Yariso inaad jaceelkeyga si degdeg aad iigu soo jawaab celiso waxaan ahay gabar caashiq ku qabto waxaan ahay naf adigu ku waalanayso dartaada ayaan aniga halkan magaalada Muqdisho aan ugu imaaday tuumos kaliya wadanka jooga 2 bil sanadku cusub aniga wadanka imaaday waxaan kaaga imaado dalka Ingiriiska waa halahaad intaasoo kiiloomitir inaa soo jar maxaa igu qasbay wax kale ma ahan anigu danteeda uma imaanin kaliya waxa uu imaaday nafsad ayaa halka iiga taalo qofaan jeclaa halkan iiga joogo madaxiisa wallahi markaan TV ka arkaa hadalkaaga iyo markaan ku arka aniga dhanba waxa damcadallada inaan ka soo baxdo dan ma awoodo aragtidaada in aragtida kaliya shaashada aan ka arka intaas waa ku qanacsanahay yaa heer waxaan gaar xataa mobilkeyga ina shaashada sawirkaaga aan saarto aniga intaas maxaa iigu qasbay wax kale ma ahan heer waxaan marayaa xitaa sawirkiisa aniga aan shaashadeeda mobilkeyga shaashadu ii saaran yahay sawirkiisa injineer Yariso intaas wax kale ma ah waa jecel aan adigu ku qabo injineer Yariso anigu way jiraan balse anigu wax inta rag dunidan joogto adiga ka ishaarta waa ku bariyaa waa iga codsi itixgili injineer Yariso itixgili الله عاشق حنون بدنا الله عاشق حنون بدنا فيري هدي سمالك إن إنجليزي رو حاس قوي هذا حاسس كيس دب وكانت أرنتا كويس دب ما وكان قرط أنا هو حالا قف نفس بحج إعلان أدي واتي أنت سرن كم أنا قاعد يبكي هاستا أنت سو كيلومتر سو كم لا أيام كسر جرا أنا قال الله بالكلية ودن كجوجا إنجليز كان مدحي سوق إماد وود ويحلي جالس إنا أشيكته بس هدا وود إنا أشيكته أنا هو حاسس حاسكيس حتى حاسكيس ما أنا أسجعل بان أقوى إنجينير Yariso حاسكيس ده دب كنت هذا كويس كمان والله أنا اسمه ده دب وكان كرتواي أنا قوان جعل هذا بس جعل كان دب معها دب مكانه أنا دب إلى معها إنه دب يجي إيمانه مركا أدا محادي هذا إنجينير Yariso وقدومي هذا كبنادر haddana waxaan duqa magaalada oo laba jeer isku haay saas daraadda u jeclaatay ma lii karaa maya anigu waxaan jeclaa intoosan xilka qabanin xiligaas ma qabanin iskuula macallin oo igu ahaa magaalada Bristol oo dalka Ingiriiska meeshaas isla joognay halkaas aniga aan ku caashaqay mooye aniga xil iyo waxaas waxba iga magalin bixilkiisa iyo wixiis aniga kuma is kaliya asaa caashaq ana asaa jeclaa waan xil iyo waxaas ma jeclaa وكا مكانك إنه جعلك وعسي يستحكليه بس أباهنا. أوكي فرنت أودم بس أو تسمع. فرنت أودم بس أودرا واحد هاي إنه سووا الخصياب بدل يقصوا الجواب نفس الجعلان هاي وكا.